kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ilahantiina meel kasta joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wareysiga fanaanka iyo waayaha fankiisa bismillaah aad baad u mahadsantahay walaal oo ku dhawahay barnaamijkan aad u qiimaha badan ma jirtaa markii aad bilaabaysay hal abuurnimada cid garab kugu siisay ama ku garab istaagtay oo kugu tiri wallahi halkaas waad ku fiican tahay hore uga siiso way jiraan dad badan oo i garab istaaga oo i dhiirigeliya mar walbana ii sheega inaan hami sare iyo hiigsi sare yeelan karo kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ilahantiina meel kasta joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wareysiga fanaanka iyo waayaha fankiisa barnaamijka toddobaadkiiba waxa daawataan hal mar toddobaadkan barnaamijka wuxuu idinka imanayaa gudaha magaalada Ceerigaabo waxaana igu martiya hal abuur da'yar isla markaasina markii aad aragtaan aad oran doontaan daadiisa iyo murtida ku jirtaaba way kala weyn yihiin Qaalib Axmed Saalax oo ku soo dhaweynaya barnaamijka aad baad u mahadsantahay walaal oo ku dhawahay barnaamijkan aad u qiimaha badan waayahay Qaalib aad iyo aad baad u mahadsantahay aniguna aad baan kaaga mahad celinayaa ka soo qaybgalka barnaamijka haddii aan u guda galo caawa barnaamijka waxa inoogu diyaara 3 maanso oo mid waliba ay wax gaar ah daaran tahay balse maanso u horeysay barnaamijka aynu ku furan doono waa maanso la yiraahdo hanku dhiir oo kaliba qof kastaaba markuu magac maqlo uu garan karayo inay tahay mid dhiirigelin bal maansadaasi ayaan jecelahay iminkana inaad barnaamijka inoogu bilowdo maansada waxa la dhahaa hanku dhiir waa maanso aan ku dhiirigelinayo naftayda maansadani waxa sharxaysaa qiso dhab oo aniga isoo martay oo igu dhacday marar badan ayaan murugeysnaa maansadan markaan sameynayay waxa lahayd amase ay aniga igu lahayd dareen aad u murugo iyo qiiro badan waxna ku bilaabanaysaa sidan hankaygu dad buu dhibaa hayaan ku lixaadiya haddana ruux baa jiro hubaashu ii haya maxaan hiil waayayo habeenka badhkiisa ooy hilaacu muxuu i hiray maxaan garabkaygii waayey hilowgu muxuu hallaabay muxuu nacabkii xadreeyey hawiyo damacay wateen muxuu qorshihii hirgaray hawraartiyo fakarku baday gacantu dhabankii ku daashay huqiyo hadalkaygii waayey dhambaal iyo heesindire waxay igu hoorayeen ruuxii igu dhaadan jiray hiyigu taladii ka guur hanaan socodkii ilow naftaydu miyey humaaga hallowsiga hiigsata hilaadadu way hagtaa haldoorkuna way tabaa haddii dadku kula hirdoomo hankaagana haybiyaan inaad tahay lama huraan hugiyo caad kuma qarsoona kuwii hadimada ku fogna hankayga kuwii nacbaa mid baan dhahayaa hadeer inaan hay lama helaan hadii lagu wada riyoodo hidaha ruux lagu xasuusto hiyiga galiyo ogaada maansad weynta runaantii waa maanso qiimaheeda wadata haddii aynu intaas kaga soo laabano maansada hanku dhiir bal waxaan jeclahay abwaan Qaalib inaad nala wadaagto xilliga ay kugu dhalatay inaad wax abuuri karto ama xilligaad ogaatay u horeysay inaad wax abuurto iyo taariikh nololeedkaaga kooban maadaama oo aad dadka ku cusub tahay magacayga oo dhameystiran waxa la dhahaa Qaalib Axmed Saalax abwaan qora Qaalib waxaan ku noolahay magaalada Ceerigaabo ahna magaalo madaxda gobolka Sanaag dadku badanaa gobolada magacyay u bixiyaan marka waxaan ku noolahay gobolka Haldoorka hadaba waxa igu dhaliyay inaan wax ikhtiraco maansooyin sameeyo buugaag qoro research ama baaritaano sameeyo waxyaabo badan soo bandhigo waxa igu saameeyay oo igu dhaliyay markaan arkay Soomaalidii ama dhalinyartii Soomaalidii oo badankoodu aan hamiisa u weynahayn markaan arkay Soomaalidii oo midba midka kale oo yasayo hoos u ridayo ayaa dareenkaas igu dhashay inaan coriyo maansooyin runtii waqtigaas wuxuu ahaa 2018 yaraantaydii waan xiisayn jiray markaan dugsiga hoose ama aan galaasyada hoose ahaa waan xiisayn jiray gabayada mar walba waxaan isku dayay jiray inaan gabay tiriyo laakiin waxa aan arkay inaan wax orin karo sida abwaanada waaweyn waqtigii
2018 ka hor gabayo waan samayn jiray laakiin wax igu dharsay markaa inaan meel iska soo saari karo oo aan la tartami karo dadka facayga waayahay Qaalib Yare aad iyo aad baad u mahadsantahay run ahaantii waxaad sheegtay oo dhan waa wax jira aad baan u fiican tahay dhalinyarada da'da yar ee facaaga in lagu dhiirigeliyo inay waxa hamigoodu yahay marun ka rumeeyaan insha Allah anaguna waan ku dhiirigelinaynaa garabkaagana waa nahay waxaan jecelahay halkan aad maanta joogto meel ka sii sareysa inaad gaadho maansada labaad ee barnaamijka inoogu jirto ayaa waxay tahay maanso magaceedu yahay gacaltooy oo sida aad ii sheegtay ay tahay maanso amaana bal maansadaas ayaan jecelahay iminkana inaad aniga iyo daawadayaashaba nala wadaagto maansadan sidaad sheegtay waxaa la dhahaa gacaltooy waa maanso aan ku ammaanayo dadka badanaaba ila jecel guusha dhiirigeliya waxaa laga yaabaa inay dad badan maansadan hore u arkeen fiidiyoyo badan ama kilibyo badan ay ku arkeen waxaana laga yaabaa inay dad badan ku cusub tahay walaal marka haddaan maansada bilaabo waxay ku bilaabanaysaa haddaan galabta guud galo gacalnimadii waagii garashada ku dheehnayd maankayga muu gabin gacaltooyadiisii guulaha u hori jiray waxaa jira iftiin gabal iyo habeen guurta joogto oo guulahayga lagu ladhay gacantuurku waa ceeb gobta looma quudhoo dadka laguma haybsado dadka oodku haadaa garabkooda jabisa waa guuldariyo gibilaan la arag gob iyo gacaltooyadayday inaan gafka weheshadaa gar iyo waxyigleela maaha guddoon wacan baa tihiin xigtiyo garab baa tihiin guniyo baar baa tihiin gob iyo gacal baa tihiin markaad garabkayga joogtaan gaashaan lagu taamo iyo gargaar baad ii tihiin geeraarka iyo maansadaydan waxaan dadka ugu hibeeyey inay garabkayga maanta ogaadaan guurtidiisa waa tahay abwaan Qaalib haddaynu intaasna kaga nimaadno maansada gacaltooyo ma jirtaa markii aad bilaabaysay hal abuurnimada cid garab kugu siisay ama ku garab istaagtay oo kugu tiri wallahi halkaas waad ku fiican tahay hore uga sii soco way jiraan dad badan oo i garab istaaga oo i dhiirigeliya mar walbana ii sheega inaan hami sare iyo hiigsi sare yeelan karo runtii haddaan isdhaho dadkaas soo koob ama qalin iyo buug ku soo koob ma soo koobi karayo waxaa dadkaa ka mid ah Subeer Axmed Saalax nin la dhaho Elbi Usaama oo saaxiibkayo mar walba ii dhiirigeliya iyo waliba wiil kale oo saaxiibkayo la dhaho Maxamed Cadde oo mar walba garabkayga taagan oo hawl walba ila soo darista iga siiya garab runtii dadku way badan yihiin balse saddexda aan kor ku soo xusay waxaan hubaa inay yihiin saddexda qof ee garab badan isii waxa kale oo aan isaguna ilaabi karin injineer sare ama aqoonyahan sare oo la dhaho Cabdirasaaq oo aanan sida magaciisa u sii faahfaahin karayn laakiin Cabdirasaaq baa la dhahaa waa bara sare jaamacado badan soo dhameeyay dugsiga Imaam Shaafici ayuuna ka howlgala waayahay inagoo ku sii siqayna guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeena waxa anu ku soo gabagabeyn doonaa maaso la yiraahdo ama la magac baxday dahab oo aad saad ii sheegtayduna ay tahay maaso amaana waliba aad amaan hablood markaa balmaasadaas ayaan jecelahay markana waqtiga aad samaysay iyo xaaladda aad ka samaysay been aniga iyo daawadayaashaba nala wadaagto way maasadan waxaa la dhahaa dahabo waa maaso aan ku ammaanayo inaan maasadan maasooyinkii hore way ka duwan tahay wayna ka qiimo badan tahay xaggayga maasadan waxaan sameeyey sanadkii dhawaa 2019 dabayaaqadiisii adiga gunaanadkiisii maasadu waxay ku bilaabanaysaa markaa sidan dahaboy daraada danahayga fiicnaa dadku igu xushmayn jiray durba waan halaabo damiirkii dulqaadkii adiga dabro daadiyay maankii danab iyo hilaacay durdur iyo xareeday dadka maad la siman tahay duriyadii isaaqiyo dun xariira baa tahay dadna waad u sidataa duriyadii isaaqiyo dun xariira baa tahay sumada cishqigeennan diiran xubbiga weedhahan ku duugan dhabaalka adaa mutaystay dawadii qalbiga doojisaa tahaye miyaan dadba kula siman inkastaynu dooqiyo damqashada ka simannahay dad baa guulaheeniyo isku duubnidaa necab kala durugsanaantiiyo damacu habaabay ku ildogsadaan waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena balse intii aanan soo xilin barnaamijka abwaan Qaalib
maadaama tahay inaan aad u daayar isla markaasina ku nool magaalada Ceerigaabo bal maxaa dhalinyaradii asxaabtaadii kuwii ardaydii isku kula dhiganay maxaa dhiirigelin iyo dhalinyarada da'da yaradii kula mid Soomaaliyeed oo dhan maxay kelmadda dhiirigelinka ay u dambaysa ee odhanaysa maxay tahay waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada ila faacayga ah kuwa iga waaweyn iyo kuwa iga yaryarba inay ka kacaan fadhiga boorka iska tubaan qabyaaladu waata Soomaalida dib u dhigtay adduunka ka reebtay Somaliland meel walba Soomaaliya idil ahaan meel walba Soomaalida joogto qabyaalad ayaa hoos u dhigtay marka aad eegtid dalalkan inala jaarka sida Ethiopia adigu dalalka Afrika horumar ay gaadheen badankoodu inkastoo lagu xanto iyagaba horumar la'aanta haddana horumar ay gaadheen waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada inay ogaadaan inay yihiin maskaxdii ummadda iyo maankii dadka anigu markii aan bilaabayay waxyaabahan dad badan sidaan kor ku soo xoosay ku soo sheegay ayaa iga hor yimi markuu qofku isdhaho wax bilow ama arrin gudagal dhibaatooyin ama caqabado badan ayaa ka hor imanaya sidii anigaba igu timi cid walbana ku timi marka dhalinyarada waxaan leeyahay ka kaca fadhiga nin walba wuxuu ku fiican yahay ha ku dadaalo waa tahay daawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii wareysiga fanaanka iyo waayaha fankiisa barnaamijka toddobaadkan waxaa iigu marti ahaa hal abuur da'yarsaan horeba idinku soo sheegay Qaalib Axmed Saalax barnaamijka anigoo Caasho Warcadeed la socodsiinaysa intaynu ku kulmi doono tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh